Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada mar kale iyo cashiradan imtixaanaha ahaa kuna saabsan calaamadaha waddada. Qaybtan waa qaybtii 6aad waana qaybtii noogu dambeysay laakiin maadaama ay badan yihiin waxaan u kala qaadaynaa 2 hadduu Ilaahay idmo insha Allah. Qaybtan waxaa loogu yeeraa Anweisungsborden ama wuxuu macnaheedu yahay boorarka ama calaamadaha tilmaamaha. Haddaan ku bilaabo calaamadda noogu horeysa Begin van een bebouwde waa bilowga magaalada ama waa bilowga meesha dhisan. Waa bilowga magaalada ama bilowga meesha dhisan. Hadda halkan waxaa inoogu qoran Hombeek. Waxay noqon kartaa Brussels ama Antwerpen. Sidoo kale haddii magaalada ay ku bilaabato waxay ka dhigan tahay marka xawaarahaada inuusan 50 yacni uusan ka badan karin. Ugu badnaan xawaarahaada waa inuu 50 ahaadaa. Boorka xiga Einde van een bebouwde waxaa kaa dhamaaday mise aad ka baxaysaaba meesha dhisneed ama magaaladii. Haddii aad magaalada ka baxaysidna waxaa lagu ogol yahay 50 ka badan ilaa 70 80 hadduusan boor kale oolin oo kuu sheegaya xawaaro kale. Einde van een bebouwde waa dhamaadka meesha dhisan ama magaalada. Boorka xiga ama calaamadda xigta Begin van een zone met een snelheidsbeperking van 30 km/h waa bilowga aagga xawaaraha xadidan ahna 30 km/h ugu badnaan. Meeshan waa meesha yacni bilowga aagga 30ka oona loo yaqaan zone 30. Xawaaraheedu waa xawaare xadidan aana ka badan karin 30. Boorka xiga waxaa kaa dhamaaday aaggii 30ka ahaa Einde waa dhamaad. Boorka xiga Begin van een autosnelweg waxaa ku bilowday highwayga. Waxaa ku bilowday highwayga ama waa bilowga highwayga. Autosnelweg waxaa loo yaqaanaa highwayga ama waddada xawaaraha sare lagu socdo. Waxayna ka dhigan tahay highwayga Belgium. Ugu badnaan waxaa lagu socon karaa 120 saacadiiba. Ugu yaraan waxaa lagu socon karaa 70 saacadii. Waxay ka dhigan tahay marka 120 ka badan laguma ogola 70 ka yarna laguma ogola. Boorka xiga Einde van een autosnelweg highwayga wuu kaa dhamaaday mise waad ka baxaysaaba. Calaamadda xigta Begin van een autoweg. Begin van een autoweg waa bilowga waddada gaariga. Autoweg waxaa loo yaqaanaa waddo gaari. Autowega xawaare gooni ah ma laha. Xawaaraheedu waa xawaare oo kala duwan. Dib ayaan ka sheegi doonaa insha Allah. Einde van een autoweg waa dhamaadka autowega. Waxaa kaa dhamaaday mise ka baxaysaaba waddadii baabuurta autoweg loo yaqaan. Boorka xiga Begin van een woon-erf of van een erf waa bilowga meel loo yaqaan woon-erf waa meel la degan yahay waxaana loogu talagalay xawaaraheedu inuu ahaado 20 km/h. Meeshan waxaa si guud ahaan u isticmaali kara dadka soconaya kaliya. Baabuurta inay galaanna waa loo ogol yahay laakiin xawaarahooda inuu ka bato 20 km/h lama ogola. Boorka xiga Einde van een woon-erf of van een erf waxaa ka baxaysaa mise kaa dhamaaday aaggii la deganaa. Calaamadda xigta
bus stroke waxaa loo yaqaanaa bus stroke laynkan uu ku qoran yahay bus waxay ka dhigan tahay waxaa kaliyo ku wadi kara basaska ama takasida laynkani waxaa loogu talagalay keliya bas ama taxi adoo gaari wata inaad korto ama aad ku wado laguma ogola calaamada xigta waxaa loo yaqaanaa besondere override parabedin waa meel gaar ah oo lagu wadi karo gaari yacni oo lagu wadi karo bas ama tram oo keliya haddii aad gaari wado ama aad gaari haysato waxaa keliya lagu ogol yahay inaad geesahani aad oga wado haddaad toos inta rabto waxaad ku wadi kartaa dhanka falaarta baabuurta dhanka kale ka imaanaysaan waxaa loo ogol yahay dhanka kaleete dhexdani waxaa loo ogol yahay keliya tram ama bas inay ku socdaan badanaa waxaa laga helaa waddo noocan ah magaalooyinka waaweyn sida Antwerpen iyo Brussels oo kale waxaana loo yaqaanaa besondere override parabedin waxay ka dhigan tahay marka tramyada waxaa loo sameeyey waddo gaar ah yacni waxaa qasab ah yacni tramka waxaa qasab ah inuu lahaado bir in loogu sameeyey laamigii si uu mataqaanaa meeshii ugu socdo boorka xiga waxaa loo yaqaanaa inrichtingsverkeer inrichtingsverkeer macnaheedu waxa waaye waddada halka dhinac loo socdo ama one way traffic inrichtingsverkeer waxay ka dhigan tahay waddadan haddaa boorkan haysato adiga unbaa leh cid kaa hor imaan karta ma jirto gaari kaa hor imaanaya ma jiro yacni haddii dhanka midig iyo dhanka bidix ay kaaga soo baxda waddo waad u leexan kartaa laakiin hortaada gaadiid ka imaan kara ma jiro adigana waddada inaad ku kala firayso laguma ogola in aad u waddo gaarigana gadaalna laguma ogola maadaama waddada ay tahay one way traffic ama waddada ay tahay waddada halka jiha loo socdo boorka xiga rechts of links midig ama bidix voorbijrijden inaad boorka ka marto toegelaten oo lagu ogol yahay yacni boorkan wuxuu ku yaalaa waddada dhexdeeda waddadan waxaa lagu ogol yahay inaad dhanka midigna martid dhanka bidixna marto waa lagu ogol yahay yacni waxaa jiraan waddooyin yeelan boorar kale horaan oo aan hore usoo qaadanay oo ku dhahaya keliya dhanka midig ka mar dhanka bidixda baabuurta kale ka imaanaysaa loogu talagalay laakiin boorkan wuxuu ku dhahayaa waddadan dhanka midig iyo dhanka bidix waad ka mari kartaa waa lagu ogol yahay rechts of links voorbijrijden toegelaten dhanka midig dhanka bidix inaad ka garab marto waa la ogol yahay boorkani boorka xiga waxaa loo yaqaanaa tunnel tunnel waxaa la dhahaa meel dhisan oo derbi ah korna ay maraan baabuur marka boorkan waxaa lagu dhigayaa hadduu meeshani dhisan ay ka dheer tahay 500 mitir waa in boorkan yacni lagu dhigaa waxaa lagu leeyahay iska jir waxaad gali rabtaa tunnel oo ka dheer 500 mitir waxaana shardi ah markii aad galaysid meeshan inaad daarato nalka maadaama meel tahay meel mugdi ah calaamada xigta waxaa loo yaqaanaa nummerbord van een gewone weg waa number oo ka hadlaya waddo caadi ah gewone weg yacni waddooyinka oo ku yaala Belgium oo aanan ahayn highwayga ayaa loo yaqaanaa gewone weg marka waxaa ku caddeynaya waddadaas inay tahay gewone weg boorkan noocan ah ayna ku qoran tahay n lambarka muhiim maaha lambarka wuxuu noqon doonaa hadduu rabo 4 hadduu rabo 100 muhiim maaha waxaa muhiim ku ah kalarka boorka iyo sida uu samaysan yahay iyo sidoo kaleete n inay ku qornaato marka nummerbord van een gewone weg waa boor number oo ka hadlayo waddo caadi ah oo local ah yacni boorka xiga waa nummerbord van een autosnelweg boorkani iyo nambarkani wuxuu ka turjumayaa ama ay ka dhigan tahay highwayga haddaad aragto boorkan iyo lambarkani iyo xarafkaniba
wuxuu ku dhahayaa waxaad taagan tahay ama ku socotaa ama gaari ku wadaa highway autosnelweg haddaa aragto kalarkan iyo xarafkanba waxay ka dhigan tahay in highway oo dalka gudihiisa ah aad ku socoto oo loo yaqaano autosnelweg calaamadda xigta nummerbord lamber boor van een internationale weg yacni boorka kalarkan iyo xarafkanba lah iida waxay ka dhigan tahay asigana inuu yahay waddo international ah yacni waddo caalami ah yacni hadda waxaan joognaa Belgiumka waddadan waxay martaa Belgium Holland German Faransiiska lambarka ku qoran muhiim maaha wuxuu noqon karaa yacni number walbaba 19 313 number 9 ayuu noqon karaa muhiim maaha soo marka mar walba waxaa muhiim ku ah kalarka oo greenka ah iyo sidoo kaleete xarafka e-ga inaad fiirsato kalarka akhdarka ah ama cagaarka ah iyo xarafka e-ga ayaa muhiim ku ah nummerbord van een internationale weg boorka inoogu dambeeya waa nummerbord van een ring waa nummerbord van een ring waa boor lamber kana hadlaya ringweg waxaa loo yaqaanaa ringweg sidaada Antwerpen ama magaalooyinka waaweyn oo kale yacni hadda hadaa kusoo qato tusaale ahaan Antwerpen waa magaalo weyn waxaa ku dul wareega highway maadaama oo Antwerpen ay leedahay highway oo weyn haddana waxaa loogu yeeraa ringweg haddii aragto magaalo highway leh oo highwayga mataqaanaa uu weyn yahay waxaa loo yaqaanaa ringweg yacni waxaa ku dul wareegan Antwerpen oo dhan highway marka waddadaas waxaa loo yaqaanaa ringweg insha Allah tacaala waxaan filayaa boorkan inuu kii noogu dambeeyay yahay qaybta xigtana insha Allah waan soo gelin doonaa hadduu Ilaahay idmo waa idin salaamayaa hadduu Ilaahay idmo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu